السلام عليكم أحبابي ميل والبا joogtaan waa idin salaamay isku soo laabasho wacan mowduuceena maanta waxaan uga hadlaynaa maxaa sababa kor cuncunka sabab badan ayaa keena qaar waxay ku noqonayaan nadaafad darrada qaarna waxa ay ku noqonayaan cudurro ku dhaca qofka maqaarkiisa qofka marka uu ku dadaali waayo nadaafadda jirkiisa wuxuu ka qaadayaa arrintan oo ah kor cuncun siba meelaha dhidida sida kilkisha iyo xiniinyaha hoostooda dabada meelahaas oo idil sidoo kale dadka qaarkood waxa ay ka sheegtaan cuncunka madaxa ama timaha nabro ayaa uga soo baxa mararka qaarkood taasina iyadana waxay u noqonaysaa nadaafad darrada cuncunka jirka maxaa sababa haddii uu qofku ku dadaalayo nadaafadda haddana uu dareemayo cuncun markaas waxa uu noqonayaa in uu isbaaro ama uu aado shaybaar si loo ogaado waxyaabaha sababay ama keenay cuncunka jirka saxarada ayaa laga qaadayaa qofka waxaana meesha loo ogaanayaa cuncunka waxyaabaha keena ama sababay sidoo kale dumarka cuncunka ka sheegta siiba cambarka ama xubnaha taranka taas iyadana waxay u noqonaysaa nadaafad darradooda gabdhaha xirta nigiska oo maalmo badan ku jira wuxuu yeelanayaa wasakh oo daran oo keeni karta nabro iyo cuncun sidoo kale furuuryaha fijeenaha ayaa ugu soo baxay nabro yaryar oo biyo wata ayaa ugu soo baxa naagaha aan ku dadaalin nadaafadooda erayada raadiska ee cuncunka jirka cuncunka lugaha cuncunka kilkisha ee cuncunka gacmaha iyo caloosha waa meelaha ugu badan ee cuncunaanka ama dadka nadaafadooda ay hooseyso fadlan ku dadaal nadaafadaada inta aadan tan guriga tan dharka iyo midda nafsiyaneed waad ku maasan tahay daawashada muuqaalkani fadlan haddii aad ku cusub tahay subscribe like comment share waad ku maasan tahay la socoshada casharadeena